Australia ama magaca rasmiga ah ee Commonwealth of Australia waa qaarad iyo dal, waana qaaradda ugu yar caalamka sidoo kalena waa mid ka mid ah dalalka ugu baaxadda weyn dhul ahaan caalamka. Waxaana Australia ku hareeraysan ama u dhaxaysa badweynta Hindiya iyo badweynta Pacifiga, waana dalka ugu weyn ee xad dhuleed la wadaagin dal kale. Dhulka weyn ee dalkan waa jasiirad, wuxuuna sidoo kale leeyahay jasiirado yaryar iyo jasiirad lagu magacaabo Tasmania oo ah mid ka mid ah 6 maamul goboleed ee dalkan. Wuxuuna maamul goboleedka Tasmania ka fog yahay dhulka weyn ee Australia ilaa 240 kilomitir. Badka guud ee Australia waa in ka badan 7 milyan oo kilomitir isku wareeg ah, sidaas daraadeed waa dalka 6aad ee ugu weyn caalamka. Dhulka dalkan intiisa badan waa dhul oomana ah ama oomana lamood ah, waxaana dhulka Australia intiisa badan loo tixgeliyaa ama la yiraahdaa outback. boqolkiiba 70 oo dhulka dalkan ayaana ah outback. Dadkii ugu horeeyay ee dhulka Australia gaaray waa dadka asalka ah ee dhulkan ee loo yaqaano Aboriginal people. Waa dad in ka badan 50,000 oo sano ka hor ka hijrooday Afrika, waxayna maanta boqolkiiba 2 ka yihiin dadka dalkan. Waxayna ku nool yihiin oo laga helaa inta badan magaalooyinka waaweyn ee Australia, balse waxay aad ugu badan yihiin dhulka bannaan qalalan ee fog ee loo yaqaano outback. Waa dad ku dheereeya farshaxanka iyo farsamada gacanta, waxayna la wadaagaan xirfadahooda kala duwan dadka dalxiisaya ee booqda, gaar ahaan dadka ku booqda halka loo yaqaano Uluru oo dhacda mandiqada waqooyi ee dalkan qaaradda ah. Sidoo kale dadkan waxaa laga helaa dhulka loo yaqaano Arnhem oo ah maanta meel ay dadka dalxiisaya tagaan lagana helo raadadka taariikheed ee dadka asalka ah ee Australia. Dadka caddaanka ah waxay dhulkan gaareen qarnigii 17aad, wuxuuna ahaa Yurubiyankii ugu horeeyay ee dhulkan gaaray badmareenkii Dutchka ahaa ee lagu magacaabayay William Jameson. Kadib waxaa 40meeyadii qarnigii 17aad gaaray sahmiyihii isna Dutchka ahaa ee lagu magacaabayay Abel Tasman, oo dhanka kalena ah Yurubiyankii ugu horeeyay ee New Zealand gaaray. Wuxuu u shaqaynayay shirkaddii Dutchka ee bariga India, waana shakhsiga loogu magac daray badda u dhaxaysa Australia iyo New Zealand. 1776 waxaa Australia gaaray kabtankii lagu magacaabayay James Cook oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Ingiriiska. Kadibna 26 January 1788 waxaa xeebaha dalkan gaareen ilaa 11 markab oo ay saarnaayeen in ka badan 1000 qof oo ka soo baxay magaalada Portsmouth ee dalka Ingiriiska. Waxaana hogaaminayay kabtankii lagu magacaabayay Arthur Phillip. Ujeedkuna wuxuu ahaa in Australia noqoto mustacmarad Ingiriis ah. Haddaba taariikhda ah 26 January 1788 waa mid ilaa maanta loo dabaaldego oo maalinta qaran ee dalka Australia waxay ku beegan tahay 26 January. Markii uu Ingiriisku dalkan gaaray isla markaana hoosgeeyay xukunkiisa, wuxuu ku dhaqaaqay gaboodfallo ka dhan ah dadka asalka ah ee dhulkan, waxaana la dilay in badan oo dadka dhulkan loogu yimid ah. Dadka Aboriginalska ah waxay la kulmeen faquuq iyo isirsifeen. Markii qarnigii 20aad la gaarayna waxaa la ansixiyay sharciyo difaacaya xuquuqdooda, balse waxaa sharciyadaasi ku lamaanaa xadidaad la xadidayo halka ay ku noolaan karaan. Dagaalkii labaad ee dunida kadib waxay dowladda Australia ku dadaashay sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka bulshada. Kadibna 60meeyadii waxay dowladda meesha ka saartay faquuqa dadka asalka ah, waxaana la soo saaray sharciyo dadka oo idil simaya. Durba isma bedelin xaalka dadka asalka ah ee caddaanku dhulkoodu boobeen, ee marba marka ka dambeysa ayuu cadaadiska lagu hayay ka dabcayay. Australia waxay qaran madax bannaan noqotay 1 January 1901 kadib markii uu baarlamaankii waagaas ee Ingiriisku u ansixiyay in Australia la mideeyo qaranna noqoto. Marka aad eegto calanka dalkan, dadka magacyada gobolada iyo magaalooyinka qaar dhammaan waa kuwo asal ahaan Ingiriis ah, waxayna Australia ka mid tahay Commonwealth Realms ama 15 dal ee boqoradu u tahay boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth II. Dhulka aadka u weyn ee dalkan iyo dadka ku nool marka la eego, Australia waa mid ka mid ah dalalka ugu yar dhanka cufnaanta dadeed, waxayna tirada dadka Australia gaaraysaa ilaa 25 milyan. Boqolkiiba 50 oo dadka dalkan ah waa Kirishtaan, boqolkiiba 30 ma haystaan wax diin ah, waxayna muslimiintu ka yihiin dadka dalkan ku dhawaad boqolkiiba 3. Waxay dadka dalkan aad ugu badan yihiin dhanka magaalooyinka dhaca xeebaha, gaar ahaan xeebaha koonfurta bari. Magaalada Sydney ayaana ah magaalada ugu weyn uguna dadka badan Australia, oo waxaa ku nool ilaa 5 milyan oo ruux ama boqolkiiba 20 oo dadka Australia ku nool ah. Magaalooyinka ku soo xiga Sydney ee ugu waaweyn Australia waa Melbourne, Brisbane, Perth,
iyo magaalada Adelaide oo ah mid ku wanaagsan dhanka beeraha. Haddaba intaan oo magaalo oo waaweyn, mid ka mid ah ma ahan caasimadda Australia, oo waxaa ah caasimadda dalkan magaalada Canberra oo dhismaheeda la bilaabay 1913 si ay u noqoto caasimadda Australia. Sababta ay magaalada Canberra u noqotay caasimadda Australia waa in lagu xaliyo murankii u dhaxeeyay labada magaalo ee ugu waaweyn Australia ee Sydney iyo Melbourne oo doonayeen inay noqdaan caasimadda Australia. Maamul goboleedka ugu weyn dalkan waa Western Australia, midka ugu dadka badanna waa New South Wales, waxaana ku nool 65% oo dadka dalkan ah. Dhinacyada uu dhaqaalaha dalkan ku tiirsan yahay waxaa ka mid ah dhanka wax soo saarka beeraha, dalxiiska, ardayda ajnabiga ah ee waxbarashada u aada dalkan, iyo tamarta iyo kheyraadka. Wuxuuna dalkan qani ku yahay dahabka, silverka, birta, naftada, gaaska dabiiciga, aluminiumka iyo diamondka, oo dalkan wuxuu kaalmaha hore kaga jiraa marka la eego dalalka diamondka ugu badan soo saara. Waxaana lacagta dalkan lagu magacaabaa Australian dollar ama AUD. Buurta ugu dheer dalkan waa Kosciuszko, wuxuuna dhirirkeedu gaarayaa ilaa 2228 mitir. waxayna buurtan ka mid tahay buuraha silsiladda ee xiriirsan ee lagu magacaabo Great Dividing Range oo ah buuraha xiriirsan ee ugu weyn dalkan, waxayna xiriirsan yihiin bad gaaraya ilaa 3500 kilomitir. dhanka kale, webiga ugu dheer Australia waxaa laga helaa koonfurta bari ee dalkan, waxaana lagu magacaabaa Murray River, wuxuuna dhirirkiisu gaaraa ilaa 2508 kilomitir. dalkan waxaa dhinac walba kaga hareeraysan badweynta Hindiya iyo badweynta Pacifiga, sidaas daraadeed wuxuu qani ku yahay dhanka xeebaha, waxaana laga helaa in ka badan 10,000 oo xeeb oo haddii aad damacdo inaad maalinba mid booqato, inaad dhammaantooda wada booqato waxay kugu qaadanaysaa 27 sano. waxaa ah xeebta ugu mashquulka badan ee dalkan xeebta magaalada Sydney ee la yiraahdo Bondi. sidoo kalena waxaa magaalada Sydney laga helaa mid ka mid ah dhismayaasha ugu caansan caalamka ee lagu magacaabo Sydney Opera House, waxaana ku dhow dhismahan bridge-ka ama buundada Sydney Harbour Bridge oo ay dad badan oo dalxiisaya booqdaan. waxaana 81 kilomitir oo dhanka galbeed ee Sydney dhacaan buuraha buluuga ee ka midka ah liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. dalxiisayaasha booqda Australia waxaa looga digaa inay ku dabaashaan goobo aan loo cayimin, maadaama dalkan ay ku badan yihiin xayawaanada waxyeeleyn kara dadka. waxaana xusid mudan in masaska lagu arki karo goob walba, xitaa goobaha lagu xaajo guto. waxaana sidoo kale dalkan aad ugu badan caara-caarada, oo waxaa dalkan laga helaa in ka badan 1500 oo nooc oo caara-caara ah, kuwaasoo isugu jira kuwa sun leh iyo kuwa aan sun lahayn. xayawaanada dalkan laba ka mid ah ayaa aad loo tixgeliyaa, isla markaana ah xayawaanka qaran ee Australia, waana kangaruuga iyo emu. emu waa nooc xayawaan oo ka mid ah shimbiraha aan duulin, waxaana aad loola xiriiriyaa bah goronyo. laakiin qoyska goronyada marka la eego waxaa ka nool maanta oo ugu caansan labada nooc ee Afrika ku nool ee kala ah Common Ostrich iyo Somali Ostrich oo ah goronyada ku nool geyiga Soomaaliyeed. shimbirta weyn ee aan duulin isla markaana aadka looga tixgeliyo Australia ee emu waa ay ka duwan tahay goronyada aan naqaano, waa ayna adag tahay xayawaankan in la ogaado labkiisa iyo dhadigiisa. sidoo kale waxaa dalkan aad looga tixgeliyaa xayawaanka bootinta dheer ee kangaruuga oo lagu naanayso feeryahanka xayawaanada, waxayna midda dhadig ee xayawaankan leedahay kiish dabiici ah oo ay ku koriso ubadkeeda. waxaana jirta calaamad dhanka wadooyinka ah oo uu ku sawiran yahay xayawaankan, waxaana calaamadaasi la suraa halka ay ka goyn karaan wadooyinka dhex mara dhulka ay ku nool yihiin. kangaruuga waa astaanta Australia lagu garto, wuxuuna ka muuqdaa shirkadda diyaaradaha ee Australia ee lagu magacaabo Qantas, taasoo la aasaasay 1920kii, ahna shirkadda diyaaradaha ee saddexaad ee ugu qadiimsan. kangaruuga iyo emu waa labada xayawaan ee aan awoodin inay gadaal u socdaan, waana sababtan waxa ay labadan xayawaan loogu dooqday in ay ka muuqdaan dariiska iyo astaanta ciidamada Australia. marka laga yimaado labadan xayawaan ee aadka looga ixtiraamo Australia, waxaa sidoo kale dalkan ku nool geel tiro badan balse aan la dhaqan oo hawdka daaqa, waxaana geela Australia la geeyay markii ugu horeysay 1840kii si uu u noqdo gaadiid loo adeegsado dhulka ballaaran ee dalkan ee oomanaha u badan. waxayna dowladda Australia bilowday sanadihii dambe in ay layso geelan kadib markii la sheegay inuu biyo badan cabo, taasoona lagu tilmaamay mid caqabad ku ah deegaanka.